kulankani gaarka ee u rabeenaa xubno ka mid hoggaanka sare xisbiga mucaaradka wadani qaybo ka mid ah xildhibaanada ugu jira aqalka wakiilada isla markaana saacado badan ka soconayay Hotel Ambassador ee duleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa ayaa markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta sharaxaad gaar ah ka siiyay ujeedooyinka ugu qotomiyay sidoo kale waxyaabaha ay isla qaateen guddidan xisbigu soo magacaabay Xuseen Axmed Caydiid oo ah shir gudoomiyihii kulankan inay mowqifkii xisbigu ka qaadan la ka soo diyaarso مسؤولين تالكم فردوا مسؤولين تحسبا ودين الشرعية وحبنا قلها هي كم يجين وحبنا حكي ياله هو أرين تراي مقرر حسب جو قابل سن دين عيدا سي كم يجين حل بانو الشيء قلها وكل ذا وحارنتي اللي جسوي موقف كي حسب يقولي يلا يسوع صاران مركا أرين تاسان وساك يسوون من كل كي كواد مرفي عنه وانو مرير إنه أرنتي آديات بانو ساك إلا laba saacadood iyo dheeraad baan arintaa imika u fadhinay almost ugu yaraan waa dhawaysanay haddii la yidhaahdo mowqif cad baa dhaqso ka soo bixi doona xisbiga arintaa markaan hoggaanka ku celino iyo guddigii fulinta ee xisbiga isaguna wixii talaahay ay garanaysaa meesha deeleg ayna ku daraan mowqifkii xisbiga si rasmi ah u soo bixi doona intaasaanu idin ogeysiinayna in shirkayagana saa ku saabsan yahay kulankan ayaa si weyn looga wada dhul sugi doona mowqifka rasmiga ee xisbiga mucaaradka wadani ay ka qaataan saldhigga military ee la tilmaamay Somaliland iyo sidoo kale Imaaraadku ay isla garteen in laga sameeyo magaalada Berberi xarunta gobolka Saaxil oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.